ay wax la siisan lahaa xoolaha wax la siin lahaa dadkii waxay isku garab go'een ninka saasoo taawo xoolihii ka guran dadkii baadiyo u badan iyo haddana xoolihii qaraamaad loo bixini ma adiga ba biyo aroorana mise qaraamaad ba xoolo ku bixini mise kayfa daa soo qaadi mashquul fara badan baa aad u jira waxaana dawladda gafaraha inuu arrintan u bedelo dib ursa jira arrintan uu ka bedelo waxaan kaloo baan u diray duqowda awdar maxaan u sheegi 2007 hatta fariisateen oo dadkii soo kala xukunteen baa waxa keentay nin madaxay sida iyada ahayd baa inii u aqbalnay ilaa intaas oo 100,000 baaqo yaa inii aqbashay arrintina ku soo ku dhaqmay maanta hal qof uu yahay gafana dawladina gacanta loo galiyay maamul aad horta dawladda waxa oo soo qaad laadahay dadka dadweynaha waxa oo soo qaad laadahay waa mar haddii aad rabto inaad bari wax maamusho ama aad la taliso ama hadalkaan la qaato si u dhaqsiyo badan wadanka dadka inaga nin kasto mas'uul ah xil baa saaran dadka aad ugu xil baa niga saaran inaad soo wareegtaan wadan soo dhaxmartaan aad ogaataan baahida ka jirto ninkan asmad xadkaasina ma joogana aad ka soo qaadaan dhaqaaliga wadanka uu leeyahay dadweynaha ay ku leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maqlaysiin waana arkaysiin umaleynaya wixii hadda aan sheeganayni wax oo ma aha muxuu ahay iska dhadhe ama iska sheega ma aha waa waxan maalin walba baaqal soo diray adarkiisiin ummadii way dhammaanaysaa wey ma aha maa nin baa madaxa iyo nin baa sidan iyo nin baa kan ma aha wey ummadda Gaarisa County ku nool waxaa la rabaa maanta dadkan inay aad u danqasato wey ummadda xaalad khatar baa lagu sugan yahay khatar baa ninkan hadda maanta biyaha noo keenay in madaxa ma aha wey oo madaxnimada hadda maanta biyaha loo kala laakiin wuxuu noogu keenay ummadda islaamka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday kal jasad waaxid buulad waa hal xubin awey hal xubin awey wuu danqiste wuu ogaaday wuu arkay biyaha noo keenay inta kalena waxaan rabnaa sidan oo kale inay biyaha u keento wey maanta isfiiris ma jiro wey in iska qabsho ma jiro wey ummadii dadkii iyo duunyadii way isku dhammaan hayaan in ma aragtay la soo gaaro nin walbo oo wax hel karo nin walbo oo wax hel karo maanta sadaqada maanta meesha uu ku baxsaday way aad bay u laabant wey aad biyaha waa naf wey anaga beel baa sidan iyo kana sidan ma dhahayno hadduu madax iyo ha arko waxa dhixayo meesha yaalo biyihii ummadda tab loo deeqsiyaal leeyahay gubis saas oo kala loo ooman yahay ee ka harja waa la mid weeye galmagaala waa la mid weeye dooy waa la mid weeye meel kasta waa la mid weeye biyihii hadda la iskugu tagay wali ilaad meesha la yiraahdo ummadii arag ku noolooda dhan baa iskugu maatay wey meel laga galo hatta ayagoo biyaha ku jiraan baa iga la wey marka ummadda waxaan baaq u diraynaa madax haday tahay haday kale madax doon ay tahay haddii dadweyne kale uu yahay islaam uu yahay nin walbabo wixii aad maanta na soo taaran kartiin oo walaalnimo ah biyaha nala soo taarto biyo waa naf wax kale oo hadda anta biyo markaan haasan aan sheeganayna ma jiro wey ama gargaar hadduu yahay ama wax kale u yamaan sheeganayna wey biyaha haddaan haasanana ma ana ka hadalneen oo war wax noo keena ma aan dhaxneen wey eegan biyo waa nafti biyo ummadan halala soo gaaro ninkan keenana ilaahay ka abaaliyo wuxuu doonaa la kusiyo ma ahe aakhara ummad dadka dhamaado oo waalid buu qabaa dadkaas ay sadaqa tijaariye u noqonaysaa wey meel maanta wax lagu baxsado oo nin muslim uu ku baxsado waa biyaha wey marka biyaha halala soo gaaro waa maasantihiin intaas aan idin leenahay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wixii laga hadli lahaa waa laga hadlay wax yar baan rabaa inaan ku daro midka ugu horeeya ilaahay baa bixin karaa الفاتحة والله مالتا إلهي لقد قفل هذا وحمد مدى اللبات مالو روانها والله كدب هو بيوي لوي مالان مدى أوهرة المه ولش إسقابين بيها لو كيلين جاري لو كريين لا دور بقولوا في الكبحين dalkeenii iibsaday dooxadadii wallay docnaanoo hambayn dooramayno mana dooran doone dooramayno mana dooran doone kuwii daraadna dilay dalkeenii iibsaday dooxadadii wallay docnaanoo hambayn dooramayno mana doora بسم الله الحمد لله رب العالمين ونستعين على امور الدنيا وعلى اله وصحبه اجمعين ولي waxaan ku jirnaa abaartii raacadkeeda iyo gaalkeeda kulay nin kasto muuqaalka marka uu arkaya halkaas uu yaalo abaarta taalo
malaynayaa meeshan sanad iyo wax roob kuma dhicin waa sababu 2020 bisha afraad baa ugu dambeysay roob meeshan ku dhaco 2021 oo dhan waxba kuma dhicin so ceelashii had dhulkan banaanka saa u arkaysiin waxay wara ahaan aan u haysanana tabtan oo kale maanta ayay u madoowaadeen oo qariib dhowr bilood aan biyo aan la gelin marka abaartii way saad celisay mar meel u guur xaggii huluqo dhankeeda ee bir noqotay haddana inta guur wal ilaa dhankeeda dadkii maanta xoolaha hadda way wada noolaadeen qariib sanad agteeda ugu jira abaartii xoolihii ay guuri karaan dhammaantii wax la qaadi wax la soo celiyay noqotay marka hore waxaan ku fiicneen meel noo jirto 30 kilomitir baa biyo noo jireen inkastoo la kala tabareeray dad qaarkiis wataba waxay qaadanayaan propox oo 300 shilin ay ku qaadanay ilaa 30 garjan 20 litre 100 shilin oo ma jirin laakiin wixii wasi dhamaaday ayaga biyo la'aan bay sii noqdeen biyo burra ka sokeeyaan oo la cabo oo ka sokeeyaan malaha taas waa tii onki hadda maadaama qalqi badan oo meesha ku nool yahay xooli uu haysto oo ku noolaan oo ay haystaan oo wax wada nuglaa ilaa wixii uu qabo socon karo uu tagay laakiin waqtiga baa haya xooli way ku dirin waxay wada noqdeen wax wada fadhaan nin kasta guriga wuxuu ku xanaanay u joogo biyo dhulkana sidan uu waxba u cunaynin inay boosho la siiyo ay tahay inay boosho loo gado ay tahay inay biyo la siiyo ay tahay iyo adigii dadka qaraamaadkii wuxuu kala bixilayahay doodkii baa iska dhamaanaya adduunyo iska dhaaf doodkii iska dhamaanay dadkii wali la soo gaarin soo sidaa la agligeed waxaan codsi u diraynaa inkastoo waxaasto dawladda codsi u diraynaa marka hore inay dadkan ay gacan xoog leh ay ku qabato ayna soo fariiso ayna isdhagan tirin muuqaalkan hadduu soo gaaro wareeg aan dhaheed ay ku aragtay ay samayso kadib programka ay qaban kadib ay qabato maxaa yeele waxaad aragtay wax lagaa sheekeeyey way kala yihiin waxay tiri laba aan salkayn isku wada adaga Soomaalida tan kale nin kasta oo islaam ah oo wax fiican haasto sidii walaalka imaan inuu soo gargaaro qortay ama dadka caradan dhibaatadaas ka jirta abaartaas xun baa ka jirta inay nin kasta oo wax gargaar karo oo bixin karo ilaahay baa gargaar iska leh inuu soo gargaaro dawladana waxaan rabnaa inay gargaar oo dhan kasta leh haday caafimaadka ka tahay xagga dunyada iyo xagga dadkaba haday xagga raashin tahay oo xagga dunyada ama xagga dadkaba iyo biyaha haday tahay inta iyadana ku soo keento oo dadka marka ninkan walaalka inaga imaan biyaha noo keenay uu mahadsan yahay qeyr Allah siiyo ilaahayna haka awaal mariyo sadaqada uu la baxay nin dawladda ku jira maaha waa nin hadda shacab oo banaan iska joogo 2022 baa kulli hadda hawaasa laakiin hadda nin banaan taagan way uu isqaamay biyo keenay alxamdulillah rabbil caalamiin kulli wax badan bay qabani hayal gaari wata buusa dad markii la keeno meeqa qof u cabi karta intaas aydo jir Allah ka siiyo hadii wali aasiid dhaqo waxaan codsi kara ugu sii darnaynaa inaa wali aanan ka maarmin kaanaan argin hadana aan ugu soo darto insha Allah ta'ala meesha uu niyeysatan ilaahay idinkiis wax kasta uu niyeysatan haday aakhira tahay haday adduun tahayba waan kugu duceynaynaa kulli sadaqana jidkeedii raadsataa waana helaysaa marka waa mahadsan tahay Cabdiladiif Haydaahir Cabdiladiif Maxamed Haydaahir aan ku mahad celihaynaa mar labaad mar saddexaad kariim waan ku leenahay dadkan waa dadkan waa tolkaadi abaartana meel Allah bay ka imaatay waana wax muhiim ah oo loo rabo in laga fikiro loo baahan yahay dadka walaalka inuu isku danqado oo isku dhageysto maxay magaalada markaysan u degan tahay dhowr ruux oo arooran kartana way jirtaa intaas ruux arooran kartana way jirtaa dadka nugeel iyo way isku dhex yaalaan inama xaasto inama wax haysanin marka qeyr Allah ku siiyo ilaahina ajir ka siiyo waana mahadsan tahay marka intaas aan ku dari lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh